xilli muddo kooban ay ka harsan tahay xilli roobaadka ayaa waxaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoy la'aan iyo arrimo bini'aadanimo ay soo wajahday dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka barakacayaasha Baydhabo. Halkan waa mid ka mid ah kaamamka ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. Dadka halkan ku nool ayaa barakacayaasha kale waxay kaga duwan yihiin in halkan ay ku nool yihiin dad aan lixaadkooda dhammaystirnayn. Waa dad indhooliyaal ah oo leh rag iyo dumar. Mar aan ku booqday halka ay ku nool yihiin ayay waxay ii sheegeen in dhulkii ay deganayeen muddo ka badan 2 sano laga guurinayo, taasi oo walwal ku abuurtay. Inkastoo la gudagalayo xilli roobaad ayaa waxay dalbanayaan in hoy loo sameeyo sida uu codsaday gudoomiyaha kaamka ay ku nool yihiin dadka aragga la kana mid ah dadka indhooliyaasha ee ku nool halkan. Bismillahirrahmanirrahim. Horta walaal adiba aragayta lama sini meelun deganani haddana arday alxamdulillah wallan walaale lamada sano ka deganani haddana lan walaale waa mayna si arday dhul oo binaan oo 5 sano ah yana si madina siina haddana arday si guuran baawar ma haysan gaar dameerka maqamna wal ku guuran hadda haysanan mala baad mala bi mala arday wal haysan mala may fadaana ini arday dadku walaalnyogan arday oo musharaaga oo arday hilka surun ini arday booyaalka biyo hanin ka qaadano raashinka anin qaadano arday alaabtan nin horan ya fadaan ma aqaba jaray arday madada guureen la toorta baawar wal alaabtan wal ka qaado may haysan jaab wal ma ka jar arday siyad bilowda arday inta la ka baahanya wal arday shal dareeray malaheedogi wal mabiyaan may fadaan walaalnyogi oo walba haysan ilaahay ku sok ay la toogay lanki kisto ama kooroonyo leeraw ya dabka in shid leera may fadaan dadka oo musharaaga dadka oo arday maalqabeenta oo arday shirkadooyinka dadka oo ulmaawdiinka oo arday sidii walaal arday haniinka gurmada lahaayeen oo dadkii dhibaataysana hindhooliyaalki kaamka hindhooliya al-aaminga leera may fadaan hindhooliyaalki eedan dhibaataysiin laanay oo may fadaan ini hunguriga naaninka dag ini biyona nasi ini arday baadka nasi arday may fadaan si dhaqse walneen ku qaba dadka sulsaarka qaban dhaw mihiin dadka aragga la ee ku nool halkan ayaa waxay intaasi u sii dheer arrimo bini'aadanimo iyo awood la'aan xagga maareynta nolosha. Mid ka mid ah haweenka aragga la ee kaamkan ku nool ayaa waxay baaq u dirtay maamulka iyo walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan oo ay kaga codsanayso in gargaar lala soo gaaro dadka danyarta iyo dadka aragga la ee ku nool halkan. walaaliyaalkay ana olli araaw hindiyay sheegureyn usmaan li araaw maga ay li araaw yeesing la hadalahay dalkii dibadda ati anti roogto seen kul hadalahay kulma addiinka iyo nay intii roogda magaalada ka jartay seen kul hadalahay yeesing la hadalahayna dhabaataysagna seen ku hadalaana dhabaatadaana seen kul hadalaana hadii walneen ku qabado koro keer hadii walneen ku qabado ay keer ilaahay amarshii walneen ka qabade ini walneen qoodo iidan fadaana jawlad hoorada ma qabna jeemadka ma qabna bukeeriga ma qabna walaka aamana ma qabna biyo baahagna baadka baahagna haddana ilaahay amarshii dhulkun dadkii lahay neenku ka haneenku guuran leey qoobka noona fuul manateedana furanyin oo kuma dimar kooyta walun asheerana ma haysano aragday balaasadii oo aragday libilo taata una nasiina una moogna yamana tefuul balaasadaas raabto dabka saara buushitay gala turuga isku leeyin manki yoonay dhaqtiyo dhalaw yoonay dhaqtiyo biyo neen galaya ora dhibaatadaas ka bareeni surnaanga ka bareeni walaalayaalkeena atin dabkaano seen sheegado hoyna lankiolneen ku qabado koro dalkii dibad atiyo inti roogta ma abtari koro haddana may fadaana inay walneen qabado intiin kooyti yoona intii korjirta atiyo. dhibaatooyinka ugu badan oo danyarta Baydhabo ku nool ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay degan yihiin oo shakhsiyaadka dhulka leh ka guurinayo, taasi oo maamulka uusan waxba ka qaban karin. Cabdinaasir Musharraf, telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland, magaalada Baydhabo.